wasiirka wasaaradda madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada madaxda gobolka Awdheegle Gubadle ujeedada safarkan ayaa daarana wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwe Samsam Cabdi Aadan iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye oo hal gaari oo ambalaas iyo deeq daawo ah ku wareejiyay badhsaabka gobolka Hawd sidoo kalena waxa ay dhagax dhigeen cusbitaal mustaqbalka loogu talagalay magaalada Gubadle ugu horreyn xafladaasi waxa hadalada iska daba maray waxgaradka deegaanka aqoon-yahanada oo dhamaantood hadaladoodu ku aadanayeen raali gelin iyo mahadnaq deeqaha ah waxay ahayd wasiirkii hirgeliyay waxbarashada bilaa sidoo kale waxa isna halkaasi ka hadlay badhsaabka gobolka Hawd Ibraahim Cali Xasan oo uga mahad celiyay deeqahan ay soo gaarsiiyeen wasiiradu intaan ambalaaska ah ee leero wado wasiirada oo dhan baa inoo wada waxa ku hogaaminaya wasiirka caafimaadka علي سليمان جرد علي شومبي وزير وزارة qorshaynta oo ku suntan wax qabadka horta ee gobolka Hawd ayaa isaguna hadaladiisa waxay ku aadanayeen askan inay wasaaradda maaliyadda soo iibisay oo ay khasnada dawladda ka baxday oo aan ahayn wax hay'ad laga soo qaaday malaha hay'adaha taqaaniin laga soo qaado ambalaasada kuwa wasaaradda maaliyadda bixisay jamhuuriyadda waxa halkan taalada weyn ay ku soo dirtay wasaaradda caafimaadka oo ay soo raacisay oo uu wasiir Xagle Toosiye soo raaciyay Cabdilaahi idin sheegay JPLG-gana way ku jirtaa Gubadle xagga caafimaadka way kaga jirtaa waliba gabagabadii wax soo afmeeray in wasiirada wasaaradaha maaliyadda caafimaadka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada waxaana kamid ah hadaladoodii ku wareejinayna badhsaabka gobolka Hawd ambalaaski loogu talagalay inuu u shaqeeyo bulshada gobolka Hawd oo maanta ku wadaagsan hooyooyinka waxa weeyaan faarax nuur baan ku abtirsadaa faarax nuur dadka wuu ka horeeyay barigii ingiriiska iyo talyaanigu dhulka qaybsanayay iyadoona cidina ogeyn soo shaac bixin ayuu gabay tiriyay uu leeyahay waa duni la kala iibsadoona la ogeysiinay waa duni akhyaartii lahayd iibku doon tahay ingiriis amxaariya talyaani way Cabdiraxmaan Samriye TV-ga caalamiga ah oo Cable TV degmada Gubadle